waxaa jira dad afka ka sheegtay in ay yihiin muslimiin balse quluubtuna ay ka diidan yihiin xaqa cad waxayna leeyihiin waxaanu nahay muslimiin balse arrintu sidaasi ma aha waxayna moodaan dad diintoodu qallafsan tahay marka ay dadka walaalaha ee muslimiinta la joogaan waxay u caddeeyaan ilkaha ayna tusaan farxadda ay ka muuqato laakiin arrintu sidaas ma aha waxay moodaan cadowgooda mar walbana waxay isku dayaan si ay kaaga saaraan diintaada wax walba oo noloshaada jecel way kuu sameeyaan si ay gebi ahaanba guul kaaga gaaraan ka saaritaanka diintaada sharafta leh taa haddii aad tidhaahdo ma ii xuri kartaa nafsadda waxay ku leeyihiin haa balse hal dhibaato oo maalin uun ku taabatay adiga ayaa u noqon karta qol maalin oo farxad ah oo noloshooda soo martay ilkahaas oo lagu caddeeyo bishmahaas oo lagu kala qaado dhool caddayn midii ugu dambaysay haddii aynu tusiyaan annagu marnaba ma aaminin maxaa yeelay eebba weyne wuxuu ku leeyahay qur'aankiisa suuratulbaqara wa min annaasi man yaquulu aamanna billaahi wa bilyawmi alaakhiri wamaa hum bimu'miniin wuxuu leeyahay eebba weyne waxaa jira dadku dhahaya waxaanu rumaynay eebbe iyo maalinta qiyaame ahayn dad mu'miniin ah laabtooda ay ku jirto kufrinimo iyo gaalnimo shirki midii ugu dambaysay haddaba waxaan ilaahay ugu baryayaa dhammaan walaalaha muslimiinta ahi in ay marnaba aaminin qosol maalaayacni iyo dhoola caddayn midii ugu dambaysay oo ayagana tusin waxaan ilaahay ugu mahadnaqaynaa aan ugu shukrinaynaa diintan sharafta badan karaamada iyo midii ugu dambaysay adduun iyo aakhiraba lagu gaaro mid yeelay ummadii nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee khaasatan ummadda soomaaliyeed waxaan eebbe uga toogayaa in ay kala gartaan adowgood iyo aabbihii ayaga dhalay ilaahow adaa mahadle oo naga dhigay ummad intii adduunka joogta ummaddii ugu asluubta iyo aqoonta wacnayd uga sharaftana badnayd ilaahow addoommadaadii baan nahaye iddii isku daysa inayna arqaladeeyaanna albaabka adaabka u toosi